السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشنا قيمها بدن كسو دوادا وحلقة لباد اي كساب سنة سيدا لو هدي كرو أعماشا أما لو قاري كرو أعماشي شهادة إلهي سبحانه وتعالى أعماشي أي سميين شهادة إلهي سبحانه وتعالى أو كري سيدين أو كسبانينا سيدين أجردي أي هلال هي شهادة إلهي سبحانه وتعالى أن أهري كرنا سيدين قريه منزلة لقارسي شهادة إلهي سبحانه وتعالى أن أقاري كرينا haddaba ma doonaysaa walaal haddaba inaad shahaadada ilaahay subxaanahu watacaala heerkoodii iyo gurigooda iyo ajradooda iyo ayagoo acmaashooda kale inaad hesho haddaba jawaabtaada hadday xaal tahay kani waa camalkii labaad ee ka mid ah acmaasha lagu kasban karo acmaasha lagu heli karo acmaasha lagu gaari karo shahaadada ilaahay subxaanahu watacaala acmaasha lagu heli karo ajradii shahaadada ilaahay subxaanahu watacaala sida acmaasha lagu gaari karo guryaha iyo manziladii ay gaareen ama ay degeen shahaadada ilaahay subxaanahu watacaala waa acmaal lagu kasban karo ama la samayn karo acmaashaasoo la mid ah acmaashii ay sameeyeen shahaadada ilaahay subxaanahu watacaala haddaba dhegeyso xadiiska nabiga sala allahu calayhi wasalam nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid qofka loo dilo xoolihiisa dartiisa qofkaasi waa shahiid qofka xoolihiisa isagoo difaacanaya la dilo waa shahiid qofka ehelkiisa isagoo difaacaya la dilo waa shahiid qofka markaa waddankiisa isagoo difaacaya la dilo waa shahiid qofka markaa diintiisa isagoo difaacaya diinta ugu muhiimsan qofka diintiisa isagoo difaacaya markaa la dilo waa shahiid qofka naftiisa isagoo difaacaya la dilana waa shahiid nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabi baa u yimid markaasaa wuxuu yidhi nabi allow ara'ayta bal ii waran nabi maxamed in jaa rajulun yuriidu akhda maali qof hadduu ii yimaado qofkaasoo doonaya xooleyga inuu khasab ku qaato maxaan sameeyaa nabiga ma oranin iska daa nabiga wuxuu yidhi faqaat haddaba u diid bal ka waran buu yidhi nabi allow haddii markaan u diido ninkii haddaba ila dagaalamo maxaan sameeyaa la dagaalan buu ku yidhi nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam haddaba wuxuu yidhi haddii waan dagaalanay haddii la dagaalamo dee labadii qof baa baxaya haddaan aanu dhinto bal ka waran adiga haddaad dhimato waxaa la yidhi shahiid baa tahay kii xoolihiisa difaacaya hadduu dhinto waa shahiid haddaba kii xoolaha soo weeraray ee xoolaha rabay inuu qaato haddii la dilana maxaa dhacaya kii xoolaha soo weeraray haddii la dilana ahlu naar buu noqonaya markaa haddaba halkaa maxaa kaaga cad nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo tilmaamay in qofka loo baahan yahay inuu xoolihiisa uu haysto haddii laga soo doonto difaaco haddii lala dagaalamo uu dagaalamo haddii la dilana uu shahiid yahay hadduu wax dilana uu kii la dilay uu ahlu naar yahay halkaa waxaa kaaga cad qofka mu'minka inuu shujaac noqdo geesi noqdo oo haddii lagu soo xadgudbo isdifaaco haddii markaa reerkiisa markaa dulmi lala yimaado ka celiya weeye markaa haddaba halkaa waxaa nooga cad camalka labaad ee lagu gaari karo acmaasha ama lagu heli karo acmaashii shuhaadada ilaahay subxaanahu watacaala waa camalkii labaad ee lagu heli karo ajiradii ay heleen shahaadada ilaahay subxaanahu watacaala waa camalkii labaad ee lagu heli karo ee lagu gaari karo guryihii mansiladii ay degeen shahaadada ilaahay subxaanahu watacaala haddaba geesi noqo naftaada difaaco oo xoolahaaga difaaco taasi waxaad ku heli kartaa ajirka shahaadada ilaahay subxaanahu waxaad noqon kartaa qof shahiida qofka shahiidkana acmaasha shahaadada inuu kasbado wey haddaba camalkana wuxuu ka mid yahay acmaasha lagu kasban karo shahiidnimo haddaba shahiidnimo haddaad raadinayso camalkan samee adoo gurigaaga jooga ilaahay subxaanahu watacaala shahaadada ilaahay kaa daba gaarsiinaya wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh